sidii rabbi ku amray. Hadda waa nabi maxamed cidda lagu leeyahay. Suuratu Huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nabiga soo qabsaday baa ilaahay ka warramay. nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi saalix, nabiyullaahi shucayb, nabiyullaahi luut, nabiyullaahi muusa, waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya. nabiyullaahi huud iyo tolkood wixii kala qabsaday markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen ayaa ilaahay nebi maxamed markaa awaamir siiyey. nebi maxamedna waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tatqow inahu bima tacmaluuna basiir. u toosnow baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida rabbi ku faray adiga iyo inta kula socotee ilaahay u toobad keentayba. nebi maxamed waxaa laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib. wakti ciro anigoo aan gaadhin timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaalay, laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed. wa fii bacdi riwaayaatna wa akhawaatuha min almufasal. qur-aanka hoose riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa shayabatnii huud wاlwaaqicatu wاlmursalaat wacama yatasaa'aluuna waida shamsi kuwirat. kuwaas baa i cireeyey buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. qur-aanka uu sheegayaa qiyaame iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka warramayo. waxa dambeeya aakhiro dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan, shayban inay noqonayaan. haddaba kuma qofka la leeyahay toosnow man huwa inahu aclamu اlkhalqi biاllah. waa dadkaba ninkii rabbi u yaqaanay ee ugu cabsi badna ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxay toosnow wاstaqim kamaa umirt walaa tttabic ahwaa'ahum wqul aamantu bima anzla allahu min kitaab waumirtu liyacdila baynakum allahu rabbuna warabukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wabaynakum allahu yajmacu baynana wailayhi اlmasiir. waxay culamadu yidhahan waa 10 jumladood oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu amrayo. ayuha alaxiba, toosnida iyo qumanidu jawaamic اlkelimka nebi moxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam. ilaahay nebi moxamed wuxuu siiyey jawaamic اlkelim. jawaamic اlkelimka waa maxay? erayo kooban ayuu macno ballaadhan ku sheegaa. sidan casrigan dadku khudbadaynayaane hadalka badan akhrinayaan nebi moxamed ma ahayn calayhi salaatu wasalaam. war kooban oo dadkuba intuu qaybo xambaari karo laakiin macnahoo dhan sida buu sheegi jiray. waraadu kooban. nin baa u yimi sufyaan ibnu cabdal athaqafi, saxaabi la odhan jiray. dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada bacdak. ilaahay rasuulkiisiiyow islaamnimada war iga sheeg aanan qof dambe weydiinin. wa fii riwaaya hayrak, islaamnimada wax iga sheeg igu filaata waanan cid dambe warkiisa u baahanin. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa su-aal adag inta qof kuu yimaado ku yidhaahdo diinta wariga si aanan wax dambena cid weydiinin in ugu filaata u maanta ii sheeg haddii lagu yidhaahdo meelaad kaba baadi doonto garan maysid. laakiin nebi maxamed maadaama ilaahay jawaamiculkelim siiyey wuxuu sheegay erayo kooban uu ninkaasi wuxuu doonayay oo dhan xambaara. wuxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim buu nebigu ku yidhi. waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey kuna toosna warkaa marka. intaa unbuu nebigu sheegay. soo ma rabtid war inaan ku faro islaamnimada aanad cid dambeba wax weydiinin. warkaasi wuxuu yahay buu nebigu yihi qul aamantu billaah. dheh ilaahay baan rumeeyey kadibna ku toosnow ku qumanow warkaasi raac. karaamada ugu weyn dadka barh baa waxay dadku had iyo goor awliyada iyo wax marka warramayaan ninkii ducaal alla ka aqbalo waxay idhahdeen waa weli karaamo hebel baa ka dhacday. karaamo waxa u weyn in ilaahay kugu karaameeyo inaad toosnaato.
أعظم كرامة ولزوم الاستقامة. أولياء النماذج هذا وقف يعني إلهي وكسية وين الروح قمان كاردقه روحان وعسنين ووضد قلبك بحين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن لحظ ضيو إن وطهلينيا حديث صحيح وقلت المامية استقيم ولن تحصوا توصنادا من الضمين يسامو النبي ليه يعني ما أودان إنا أيضا إن يرنوع وعن لكن توصنادا. واعلموا وحا أوغاتان أن خير أعمالكم الصلاة. أعماشينا وحا وفي عن عمل الله سميه بعد التوحيد صلاة بوقفي عن النبي ليه هذا صلاة كاضا يعنتو ديني كاضا يعنتو أكسنو استقامة وتكفك تهي هذا صلاة كاضا يعنتو استقامة يا ذيك إن دير بايدين حيسا آيات كي ونبي لها سورة لها ويجبو تشسينا وحيابو كنت المامي وحكم إلى إلهي سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب مع محاكو تشري وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أي كم الهي وحاص ميسان صلاة بوفي عن بارب أي نبي ليه ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ويسنا مرة ورطوما إلى ليقف مؤمن مو يعني إسلام نمدا وحيابا وفي عن وحكم ده إنا ويسدو كاتشم هذا كاتشبت إنا ديبو ويسيست صول بهداد ويسيست صول بهداد قشينا تسوي ويسيست إنا الطاهر هاتا دم النبي يقول حنوت الماما يا استقيموا ولن تحصوا توصنادا من الضمين يسان. حديث اللي بعده بخاري مسلم وكويا له وحنا النبي يقول سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا السداد وتوصنان تلفتيدي أما إصابة وقاربوا المقاربة القصد. مثلا مركا دكتميسو دكتن كسا ما تقانين رصاص أما ورن مركا وحلا وضع اللي شام يلا دكتميو حين سمينا ميل با علامة ير لينو دغا ما وحبا لا دغا dadko dhabi uu toogtaa laakiin mostly waxay u badan tahay dhibicda centerka qof iyo laba bay ugu dhacaysa hadayga xataa ku ugu dhacdo ka labaad waxa laga yaabaa inaad dhinaciisa ku dhufato. nabigu wuxuu leeyahay war waxa sameeysan dugtankaasi sadidu marka hore ku day inaad halka toosan la heshid de xagga haysaga tuurin warag ee meeshii lagu dugtamay la eego ku dhaweena hatta hadaad centerka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ku dhacdo haddaa sidaa yeeshaan buu nabigu yiri de bushaaraystana markaasuu nabigu wuxuu leeyahay wa'lamu annahu lan yudkhila aljannata ahadan amaluhu ogaadana ninna camalkiisu inaanu janno geynin yani jannada ilaahay waa ka qaalisantay xogaa ka yaraynu sameeyno jannada ilaahay waa ka weyn الدنيا وعشرة أمثالها جهنميين كو قدام بيا جنة صوغلا أيها وحي لين محي أدوك يتبن لابكي حقه الرقي كقلا يمركا محي لين عماشا شقي سينوا محي لحدا سنة كنت سنة أدو حقا ودودي إذا وحقو يماها لكن سبب بيو نقطة صحابة مركا يدهدين ولا أنت يا رسول الله وحتى أدوك عملك أقول ميانو جنة قوني قال ولا أنا أبو نبي إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة إلهي إنه نحرسيس يقول ضبوله ودمي جاي قرنا فمو يعني أنا ما حتى عمل كي يقول مقوي واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل لكن وحي أكسونات أبو نبوي إلهي أكتيس عمل وحي لو قلتش عليه كو اللي تشوكتيو استمرارية استقامة ثبات كوحي كسقمة أي إلهي أكتيس اللي قلتش عليه هبير هذا أعمال شادوين يشوكتا النقط. إذن أيها الأحبة waxaa laynaga rabaa السداد والمقاربة inaynu isku dayno inaynu barta asiibi karno inaynu ku biro ya ayuha aladiina aamanuu اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ilaahay ka cabsada oo inta runta